السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan. ka hor intaynu guda galin muuqaalkani like inoo saar. weli waxaa inoo socota maadadeenii farmakolojiga casharkii 11aad qaybtiisa 3aad oo aynu ku baranaynay daawooyinka antibioticska. maantana waxaynu baran doonaa carbapenemas iyo monobactamas daawooyinka loo yaqaano. waxaan rajeyn doonaa ilaa intaynu ka gaari doono dhammaadka casharka kani inaad ilna socon doontiin biidni illaahi jalla wacala. haddii aynu ku horeyno carbapenemaska waxa ay ka tirsan yihiin antibiotic agentska kuwaasoo inta badan loo isticmaalo in lagu dabiibo infekshanada halista ah ee ka dhasha bakteeriyada. khaasatan daawooyinkani carbapenemaska waxaa inta badanba lagu dabiibaa infekshanada bakteeriyada noocyadooda iska caabin kara daawooyinkani antibioticska qaybahooda kale. daawooyinka ugu caansan haddaynu ka hadalno marka kani ay soo hoosgala carbapenemaska waxay noqon karaan 4 daawo oo kala ah imibanam oo ay la jirto cilastatin, merobanam iyo doribanam. 3 daawoba waxaa laga qaataa xididka, halka daawada afaraad ee ertabanam iyadana la qaato maalintii 1 mar waxaana laga qaataa muruqa iyo xididka labadaba. markaynu ka hadalno mechanism of actionka ama qaabka daawooyinkani u shaqeeyaan waxay kala siman yihiin qaabkii ay u shaqeynayeen daawooyinka cephalosporiniska iyo penicilliniskaba. kadib marka uu qaato qofka daawooyinkani carbapenemaska waxa uu isku arki karaa allergy, matag, nabro kusoo baxa maqaarka oogadiisa sare, labolabo iyo ugu dambeyn shuban kusoo booda qofka kadib marka uu isticmaalo daawooyinkani mid ka mid ah. marka kani haddaynu u gudubno monobactamaska waa daawooyin ka tirsan beta-lactam antibiotics kuwaasoo inta badan baa loo isticmaalo in lagu dabiibo gram negative bacteria infekshanada ay keenaan sida bakteeriyada loo yaqaano Pseudomonas aeruginosa ayaa lagu dabiibaa daawooyinkani. mechanism of actionka ay leedahay monobactamas haddaynu ka hadalno. monobactamas markaynu ka hadlayno waa horta bactericidal oo waxa ay dishaa bakteeriyada. waxaa kaloo ay qabataa in ay joojiso samaysankii la samayn lahaa gidaarkii bakteeriyada unugeeda, taasoo marka fududeynaysa dhimashada bakteeriyada nooceeda gram negative bacteria oo inta badanba loo isticmaalo in lagu dabiibo daawooyinkani. haddii aynu ka hadalno daawooyinka soo hoosgala monobactamas, astronium ayaa ah daawada keliya ee laga heli karo qaybtani marka laga hadlayo monobactamaska. iyada ayaana awood u leh inay si toos ula dagaalanto cudur dhaliyaha bakteeriyada loo yaqaano gram negative bacteria. kadib marka uu qaato qofka monobactamas waxyeelada ka dhalan karta waxaa ka mid ah in qofka ay nabro uga soo baxaan oogadiisa sare maqaarka, in qofka uu ku dhaco caabuq kaasoo sababa xididadii dhiigga ee tiftaafyada inay ku samaysmaan xinjir oo loo yaqaano phlebitis, iyo qodobka 3aad ayaa waxa ay noqon kartaa in carqalad ay ku timaado shaqadii beerka, calool xanuun oo uu qofku dareemo xilliyada qaar. intaasi ayaa ugu waaweyn marka laga hadlayo waxyeelada ka dhalan karta monobactamas. waxaan rajeynayaa inaad si fiican u fahanteen qaybtani qaybihii horeba. waxaa halkan inoogu eeg casharkeeni maanta. casharka xiga intaynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum.